runtii aniga safarkan safaro horo badan ayaan imid magaaladan inta badan waa ogtihiin mar walbana waxa aan raadinayno waxay ahayd meesha hadda maanta la joogo waqtigaan diyaarsanayn nasiibkaan maalintaas gelin fursadaan jirin sababtay rabta ha noqoto laakiin waxaan rajaynayaa maanta inay fursaddii abuurantay waxaan si gaar uga mahad celinayaa Axmed madaxweynaha oo runtii isagu dhinacaas dib u heshiisiinta ku bilaabay waa soo mareen dad badan oo siyaasiyiin gobolka oo runtii mar walba waxaa naga hoos baxaysa arrinta dib u heshiisiintu macnaha ay leedahay haddaan dadku heshiin aan xooga la midayn xoog wax macnaa ma laha waxaan runtii ku farxay maanta inaan arko Ismaaciil Macalin Muuse oo odayaasha ugu waaweynaa dalkan maaragtay waagii carta dalka anigaan ku soo laabtay gudoomiyihii guddiga dib u heshiisiinta Soomaaliyeed ahaa iyo anigu dhalin yar ah laakiin Cabdiwaayil markuu jaamacadda u joogay madax u ahaa anigu laakiin waxaan ahaa maaragtay yaa sheeg meena maanta odagii oo leeyahay Cabdiwaayil oo oday aniga isu baqday moogta marka dad badan oo runtii qaaliya oo waqti hore isugu keen dambeeyay maanta meeshaan ku arkay in badanna waa sii jirtaa insha Allah fursadan hadii ay bataan waa chance baa la soo helayaa mid dadka oo dhan baa ka wada hadlay xildhibaanada siyaasiyiinta intii hadashaba waa muhiimadda ay leedahay in si midaysan gacan loo siiyo loona taageero maamulka hadda unkamay galmudug arrintaas in ay guul dhasho oo noqoto annagoo dhan naga imaan maysa madaxweyne ka imaanaysa annaga waxaan noqonaynaa lugaan u noqonaynaa hawlihii uu noo dirsado iyo shaqadii uu noo dirsado ayaan kala shaqaynaynaa haddaan dhinac orodno oo aan isku dayno inaan qofba meel ka shaqeeyo shaqadii ma noqonayso Ismaaciil rabaa hadal waxaan soo xasuustaa daayto markii aan laamiga maxaa ka hadlaysan Ismaaciil laamiga uraniumka ku badan xoogaa ma ogtahay kuleelka aad aragtay iyo degdega badan ma aragtay waa uraniumka ka fogtiin adinku marka waa nimcada Ilaahay waa halkaan dhinaca inta Allah marka madaxweyne waxaan adaan ku rabnaa inaad sidaad hadda arrintan baadu initiative ku qaato oo suuqa yeertay oo nin aadna is aqoon lama arko laakiin inaad initiative waxa weeye waa inaad qofku soo qaataa taladaas waa kaaga mahad celinayna waxaan rabnaa inaad sii wado inta maqan aan kula doono kii adiga aad keeni karto qof kasta waa garan karaa qofkii adigu aad casuunto oo tirada waraan wada shaqeyno waa diyaar u noqonaya kii aad istiraahdo xoogaa waxba ka dhimanna inteena qofkii aad istiraahdo waxba u dhow yahay hal la wada doono laakiin waa runo intaan xoogooda hadii lagu mideeyo galmudug waa soconaysa hadda waa gobolada stateska ugu liita waaye runtii Soomaaliya uguna fiican uguna fursad fiican markaan fursad leeyahay waad ogtiin dhamaantiin Soomaaliya waxa hadda lagu qiimeeyaa stateku inuu fiican yahay inuu maartay dhibaataysan yahay amniga lagu qiimeeyaa waxa ugu badan oo la qiimeeyaa ama investment marka la gelinayo lagu geliyaa waa amnigiisa la fiirshaa stateka aad habeenkii 6 saac habeennimo gees aad u socon karto inta yar oo dhimanna hadii la yiraahdo maartay la dhameystiro stateyada markii laga reebo Somaliland iyo Puntland inta kale Soomaaliya waa meesha ugu fursada badan marka fursadaas ma waxay weeday tala midaysan iyo siyaasad hufan oo cad oo runtii hore u sii wada waxaan ka rajaynaynaa helo adiga ka dhigo maaragtay adoo qolyo kale taageerayo ku shaqeynayo xoog kaliya aan ku arki jiray maaragtay rag kale la maaragtay balorta ragaani maaragtay marka nasiibka waxa weeye dad rag adoo lagu taageerayo maalintaada marka waa xoog furaantii aad rag ku taageertaa maanta lagu taageeraya waa kala shaqeynaynaa waa ku soo dhaweynaynaa waa naga dhab runtii wax dan ah oo aan ahayn in meeshaan hirgasho geedahan aan awood u helna aan fariisano xamar hadda ku noolnahay xabsigan ku jiraa runtii xamaran ku noolnahay guriga weyn ku wada noolnahay laakiin waxaan ku jiraa qof walba xabsi guriga ka furmaanta inta aan soconay lama socon karo intaan oo lagu lugeynayaan rabnaa intaan oo guriga laga dhisanayaan rabnaa meel walba la teegi karo marka runtii munaasabad qaali ah waay waxaan rajaynayaa inta dhiman gaar ahaan sida hadda laga dhawaajiyay madaxweyne xaaf iyo siyaasiyiinta la joogta in la soo dhaweeyo waxaan rajaynaynaa runtii aniga waan qabaa in aan la yareysan khaladaad way dhici karaan siyaasaddu dadku waa ka qarbi kartaa laakiin magaaladan iyo deegaankan inta badan ahlu sunna waxay ka qabatay aniga goobjoogan oo ah wax la yaab leh oo Soomaaliya aan ka jirin ka qabatay marka in waxaas laga qabto wax lagu sii kordhiso maaragtay aadan u danaynayna wax badan waxaan raadin jirnay waxay ahayd wanaagii la qabtay iyo fursadii ay abuureen oo inta badan oo adduunka dalaamiga maraysan godadka yani inta ku dhimatay aan u wada joognay waxyaalaha aan aad ugu qanacsanahay waxa waa madaxweynuhu aad u og yahay dalka maalin uga tagin waa uu joogay inta markii waxaas ay dhacayeen
intaan maaragtay in marka dadkaas dhiigooda iyo dhibkii ay soo mareen wanaagii ay abuureen inaan laga faa'iideyn runtii khasaare annagay nagu tahay khasaare iyo foolxumo annagay nagu ahayd siyaasiyiinteena dadkeena ka dambeeyo haray ayay waxay ku ahayd siyaasiyiinba dad badan oo qiimalaha ku maqan marka ilaahay inuu maaragtay maanta ka dhigo waqtigii ay israaci lahaydaan rajaynaynaa ducadana in shaqo lagu daro oo tanasul lagu daro oo madaxweyne si gaar ah waliba adigu tanasul badan aad bixiso adaa shaqada haya adaa meeshan ka mas'uula cid walba oo ay u baahan tahay inaad u tanasusho oo soo dhaweyso oo aad keento oo aad shaqadaas si loo qaban lahaa laga wada shaqeeyo aadan kugu rajeynaa waana ka muuqataa hadda waanad ku bilowday waxaan rabaa inaan u dhameystiro iraahdo galmudug waxay leedahay maanta aad uga muuqda inkastoo dhowr gabdhood ay joogaan galmudug gabdhaha ugu firfircoon ay leedahay dalka anigu dibadahan ku soo arkay gudahan ku arkay xooga aad aragteen inta hadda dhisan oo NG ka dhisan gabdhaha dhisan rag ma dhisan marka cadaadaha hadda tagto dhusmareeba waxaan tagay gaalkacay meel walba gabdhaha ku xoog badan marka waxaan rajeynayaa in gabdhaha dibshiinta lagu daro oo gabdho badan loo yeero oo ay iyaguna yimaadaan dibadda iyo gudaha laga keeno marka waa dhamaantii waa salaamaya wa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh